waa macalinka nolosha Axmed Isxaaq kusoo dhawaada waqtiyadaada noloshaada ilbiriqsi noloshaada kamid ah ayaad mar inta fadhiisato waxaad ogaa doontaa marka aad ogaato inaad xumaan ku bedesho inaysan waxba horumar lahayn noloshaada waqti waxaa kusoo mari doona aad qof qol iskula jirtaan kadibna aadan munaaqasho ama mawduuc aada ku furi karin aadan waxbana kala hadli karin waqtigaas markaasaad isleedahay miyaad riyoonaysaa kadib raadi farxadda noloshaadu waxa ay ku jirto qolkaas inaysan ku jirin ayaa laga yaabaa kadib aad ogaan doontaa farxaddaada aad raadinaysa inaysan qolkaas ku jirin farxaddana qof bin aadan kama heli kartide adiga ayaa samayn kara ilbiriqsigaas markii la gaaro ood adigu naftaada dib u fiiriso ood ogaato hadal dad ama kalarro kala duwan hadal dadeed ama kalarro kala duwan inaysan waxba kaa qaadi karin markaas ayaad ogaatay meeshaas marka aad gaarto ayaad waxaa bilaabaysaa sidii shimbir duulay inaad ogaato qiimaha noloshaada iyo sidaad noloshaada u samaysa lahayd waqtigaas waqti ka mid a oo nolosha markaasaad waxaa ogaa doontaa yaa waqti siisaa yaad jeclaataa yaad necbaataa markaasaa waxaa qalbigaaga kusoo degi doona naxariista ilaahay oo ah inaad ilaahay ku shukriso inuu nolol ku siiyey ood maanta neefsanayso markaas noloshaada dib aad u fiiriso u ilbiriqsato noloshaada koobka qaxwada ka cab gacmahaaga ka cab adiga oo ku qanacsan noloshaada iyo neefsiga ilaahay ku siiyey waqtigaas markaad gaarto noloshaada waa waqtiga ugu ruuxaanta badan oo qofka biniaadanka gaaro farxadda marnaba ha ka raadinin qof saaxiiba ama qof waarid ku ah ama qof aad dhashaba farxaddu gudahaagay ka soo baxaysaa meel walba ay gaartaba adigu gacmahaaga ku soo bixi noloshaada waqtiya waxaa jiri doona ka mid ah oo habeenkuna kugu dheeryahay maalinkuna aad u gaaban tahay sababahaasna waxaa keena walwalka iyo fajaca iyo amakaaga iyo walwalka naftaada haya ayaa aad u badan laakiin ogow wax walba oo naftaadu samaysay oo qalad ah ama sax ah waa wax kuu qornaa waxaad ogaataa wax walba oo dhacay waxba kama bedeli kartid laakiin waxaad wax ka bedeli kartaa mustaqbalka haddaad soo kuftay ood meel ka soo dhacday berito meeshaas mar labaad ha ku dhicin meel lagaa qaniino mar labaad in lagaa qaniino ma ahan markaasaad waxaa ogaanaysaa inaad ilaahay ku shukriso qaladka iyo saxda ku kala baray waqtiyadaas waqti ka mida noloshaada waxaad ogaa doontaa mar ayaa dadka biniaadanka hadalkooda dhanba ku dhibi doonaa aad farxaddaada waxaad ka heli kartaa naftaada iyo cibaadada ilaahay